boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiir عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تمر وبيد مدريد كجبتان فيديو مونكسن مالين مونكسن حيل ولي بأي وقت ولي بويدين تاعي قاب والبيد ما قلنا صحتنا كروس ولا برامج كني أنا ما كنت تدعو في القنجرة فراتك سافر دي ساعة مرة يعني وهودا كوكولا حوران تي جوية دي دايا مسلف سنة قد بدو ما أنت وجوه وين يعني كم أقلي دورنا برامج كنا دين عبد الريد كريبتنا وحا كامدة عراركي كرينا جانا إني نقنيسو ودنا كسدحات ama afraad ee u soo ordaya kaalintaas inuu soo gala qaaradda Afrika la dhaqanka lacagaha cryptocurrency-ga Kenya iyo Nigeria ayaynu kula tartamayaan kalimaha kale ee ku xiga hadii aan Kenya kaalinta labaad iminka qaaradda Afrika kaga jirta isticmaalka lacagaha cryptocurrency-ga bangiyo kala duwan qaarkood reer America qaarkood reer Europe qaarno macrabba mise waa Afrikaan qaybta hoose ay nagu reebi doontaan oo lacag gaari karaysa 9.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lacag kala duwan oo dhinaca gudaha kriptada ku maalgashada kuwaasi waa sidee xaalkoodu xuraanta aanu ka helayna bangiyadaas iyo coinanka ila dhaqmaane kuwa kamid ah ayaanu dib u fiirin doonaa adduunyo gadaal u shaqeysa xaalku waxa uu maraya jamciyadda qormaha ka dhaxaysa ay guddiga Federal Reserve Currency-ga waddanka Mareykanka ama hay'adda lacagta soo daabacda dollarka ay ku dhahaan qaadida interest rate-ka ama qaadida lacagta ribada dollarka Mareykanka aad kor u wadaan dunidii faqriga ahayd faqri ay ka dhigtay wadamadii kale ee la dhaxayay horumaray dunida hormuud uga yihiin dadkoodii ayay faqri ka dhigaysaa oo afar ka mid ah wadamadaas dadka ku nool ayaa sii taajirooyay bahasha ka daayo doonta meeshaad u wadaan si degdeg ah rayfis ugu soo celiya mise waxaa jirto xuraantan kale ee tilmaamaysa dhaqankii Japan bangiga dhexe Japan iminka uu bilaabay in China isagana uu bilaabo dollarku lafihiisaba gadaal isagana uu dib mar kale ugu soo socdo qodobadaas ayaa jeclaan inaan kusoo qaato waa saaxiibkiisii kooda dhahayo like subscribe share adiga bani markaa gadna annaga wax badan ayay naga saacidaysaa in dad fara badan oo aanu gaarno oo ku xirnaan karaya shabkadeena Crypto Somali Media anagu bilaabay waxaan arki karaynaa jawiga suuqa iyo xaaladihiisa kala duwan in waxoogaa soo kabsashaa ay yara jirto hal dhibic 8% ku dhawaad lacagta guud ee crypto ku jirta ay madaxa soo qaado 981 bilyan oo dollarka Mareykanka marayno darbigii trillion-ka dagaalkiisii iminka uu noo bilaabanayo toddobaadkan arki doonne bishii cagaarneydna waa la galay su-aal isweydiinta markay noqoto doontan xawaaraheedu ribada ordayane dib ha loo soo ordisiiyo waan arkaynaaye ma bisha ayaamahe bishii cagaarneyd noo noqon rabto dhaba 9,500 ayuu marayaa bitcoin waxaan dareemi karaynaa afraadkii saaca la soo dhaafay 2% jiro soo qaariyoobay kooran kala duwan ayaa laga yaabaa dhinaca trade-ka ee fursada dadka ay ka helayaan sida coin-ka Evmos iyo Quant Ethereum Class DNS andaho Thorchain Tezos Matic iyo kuwa kale aad u fara badan oo la isdhihi karo sababtu fursada dhinaca trade-ka ayay ka kala heli karayaan maana waan arki karayno janiskii ugu fiicnaay ee sanadkan coinanka ay ku jirto inay iyana ka mid tahay muuqaalka ku xiga insha Allah ayaan 4 ilaa 5 coin isleeyahay asxaabta iskula wadaago isleeyahay bal ama sanadkan abaartan aanu dib u milacsanaa bal xaalkoodu in aanu wax ka bedelno ama aanu niraahdo bal warcoinankan asxaabay aanu la dhaqanno qaaradda Afrika wadamo kala duwan ayaa crypto la dhaqma laakiin Nigeria ayaa hormuud noo ahayd markay noqoto wadamadan West Africa la isku jiraahdo hadda laakiin sheekadu xaal kale noqonaysaa Kenya furinta hore ay soo galaysaa safka marka ay noqoto report ay sameysay shabakada kala duwan dhinaca research-ka 20ka wadan ee ugu la dhaqmi og crypto markay noqoto qaaradda Afrika Ghana ayaana la baro kala duwan ka soo kala galayso aan arki karaynaa in volume waxyaabo ay buuxiyaan 4% volume-kooda dhinaca trade-ka uu aad u kacay isla markaana Ghana dad fara badan hataa taagnaadaan dalxiisayaasha Nigerianka ayaa qiyaabta crypto fahansiinaya ayaga naftigooda way soo fahmayaan dowladda wateedayda Central Bank Digital Currency CBDC aan sameynayna waxaan dareemi karaynaa موجودة إني تهاي موجود حاجة صغيرة كورليسة كينيا قال هذه سيدة حالكو سي صعدة يقولوا ترتمي كرئيسو كان انت وبعدين سيدة حاد ويست أفريقيا إني كسو قشو جيروم باول إنك مدحدك شركة الصوت بعد الدولار كم ريكن كان كورنا وقاعدة حواصنا ودقة لعقتها
ribada wadanka maraykanka ee lacagta doolarka loo yaqaano. maanta waxaa ku dhegan hay-adda jamciyadda qormaha ka dhexeysa UN-ka xafiiskooda Geneva warbixin uu soo saaray suuqa dhinaca sarifka iyo trade-ka iyo waxbaas kala duwan markay noqoto ayay waxay taagan yihiin hay-adda jamciyadda qormaha ka dhexeysa Jeromo dunida meeshaad u kaxaysay adiga iyo isbahaysi kale miya mise qolo kale oo qura faa'iide baasho beertay isla gashay dunidana inaad usoo hormuud u noqotaan idinkoo Federal Reserve Currency ah inay gasho dhaqaale xumo ayay keenaysaa in aad dabada u haystaan hadafka sare u qaadka lacagta ribada wadanka Mareykanka cabirkeeda aad doonaysaan 3% kala duwan inaydun gaarsiisaan laakiin ilaa 3% 3 ilaa 3.5 meelahaas ku dhawaad ayay hadafkoodu yahay la gaarsiiyo inay gaarto lacagta interest rate-ka wadanka Mareykanka. laakiin UN-tu waxay ku andacoonaysaa sicir bararku in xaalkiisu taas uu ka duwanaan karo lagana yaabo goobo kale inay ka imaan karayaan bangiyaad u fara badan ayaana kacay. Swiss Bank iyo kuwo kaloo aada u badan ayaa maanta doontoodu biyo ugu soo galeen xaruntii Geneva way hadashay macnaheedu Swiss Bank baa kasoo hadashay bas qolo kale kasoo hadashay qolaa kasoo hadashay inay soo taagan annagoo magacii wadana jamciyadda qormaha ka dhexeysa Jeromo naga dhaaf doonta saan aad u raraysa xawaaraheedu uu jarayo oo base point-yadan interest rate-ka aad ku daraysay 7.75 base point content base point wax kaloo laga sugayay iminka hadday noqotoba sicir bararku xaaladaas waxba ka tari maayo oo adaa soo daaha camal oo 8.3% ku dhawaada soo ahaa timid marka doonta dib u soo celi haddii kale wadamada dunida ugu horumaray dadkoodii ku noolaay waa faqriyoobayaan bulshada wadamadan European-ka ama Western-ka la isku yiraahdo marka laga reebo dhowr ganacsata oo qura oo taajiraysa Africa iyo wadamadii kale dunida ee faqrada ahayne toos u sii faqrinayaan marka doonta afar qof hadda hore usii qaadanaysiin waa gooni haddii kale baasha naga soo celiyaya marwayaan marka asxaabta soo arkayna bal xaalku suuqa noqdo abla dhanka kale waxaanu fiiri karaynaa markay noqoto bal xaaladda dhinaca bangiyo kala duwan ayaa lagu soo waramayaa lacag gaari karaysa 9.20% 9.24 bilyan oo doolarka Mareykanka inay ku maalgashteen lacagaha cryptocurrency-ga reserve la sameeyay oo bangiyadu iyagu oo xogta ay keeneen waxaa ka mid ah 7 bangi oo ku taala Europe iyo dhowr bangi oo iyagana ku yaala markay noqoto gudaha wadanka Mareykanka oo 10 ka mid ah ay Mareykanka ku yaalin 7 ee Europe ku taalo dhowr kalene laga yaabay hal camal Africa hal xaba ah iyo Carab hal xaba ama laga yaabay inay labaduba Carab yihiin ayaa waxay taagan yihiin 9.24% 24 bilyan oo doolarka Mareykanka dhaho ayaanu ku maalgashanay cryptocurrency-ga Bitcoin waxaan ku maalgashanay lacag gaari karaysa 40% policy-geena lacagtan guud Ethereum sidoo kale Polkadot XRP Cardano Solana Litecoin XLM iyo USDC Circle bangiyadu iminka 10 bangi ee iminka crypto la dhaqanta ee xogteedan uu la soo cadeeyay waxay la dhaqmaan coinanka kala ah Bitcoin Ethereum Polkadot XRP Cardano Solana Litecoin XLM Stellar Luminous iyo USDC xaga Circle iska taqaanaa BlackRock groupkiisa asxaabtu wata xagga luuqas ku sii yara fogaaday Circle iyada naftigeedu waxay taagan waxaanu rabnaa inaan laga dhigo nidaam bangiyeed buuxa oo dhameystiran marka arki doonaa bal percentage kala duwan ay coinanka ka kala isticmaalayaan waxaan arki karaynaa 22% oo kale 25% oo kale asadeeda kala duwan haddii xaalad listiga groupka ugu horeeya oo Polkadot XRP iyo Cardano oo kale 10% Solana Litecoin XLM inay kula dhaqmayaan iyo ana coinan kala duwan aad islaamahay waana iyada naftigeedu fursad dhinaca markay noqoto company insurance-ga oo qura ay security kula dhaqmayno bangiyada fara badan bay imika ay la dhaqmayaan ana saabkii sidkeeda dhahayo like subscribe share adiga bari markaa gadna wax badan ayna ka Soomaali media ka saacidi karaysa warbixinadan iyo xogahan aan idin kula wadaagayna halkan darbiga 10ka wax yar ayaa noo dhiman badanka noo si taabta si darbigaasi aan u gaarno qaybahani dambe ayaan soo gaarnay waxaana macquul ah toddobaadkii ugu wacnay gudaha kiribtada inuu noo bilaaban doono darbiga 19ka xoogaa aan ilaabi karayno bariyo laakiin
baashu weli meel bay leedahay waxaana macquula isbedela kale inay nagu soo socdaan ka hor intaan la gaarin 15 bishan October inta ka shaqeysana suuqu waxoogaa iska yara dumaa dhaclayo 18 20 areadeeda aanu noqono laakiin weli faanooli Afrika ma qodno waxaan isleenahay xilabaareedkan waxaanu ka faa'iideysan doonaa dhowrka insha Allah inta kula soo wadaagi doono muuqaalka noo xiga noo taabto bannaanka asxaabtiina la sii wadaaga fursadaha dhinaca trade-ka sii eegta coinadka kale ah haddaynu janiska heli karaysaan BNP Cardano Solana isaga naftigiisa waxoogaa fursada baadka dood waxoogaa ka heli karaynaa waxaa laga yaabaa fursado inaan ka heli karayno Chainlink iyo Stellar Luminous waxoogaa yar wax percentage inaan ka aragno Opla iyo Hadara Hashgraph Tezos iyo Samples Elrond iyo Shilis intaba afralaad ka saacad socda waxoogaa bedela inay ka dhacaan macquulo 2-3% jeebka oo waxay ka soo kordhi doonaan muuqaalkan mid lamid ah ku kulmi doono waa hawd meeshan hawdkuna ma wanaagsan in lagu fogaado sidaas nabadina noo kula taliyo in aman Allah boqol sano midkii jiray wuxuu aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo